السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبعض إيه مقال عصب كسر هذا ودوكسي ميديا إيه ولي عبد الساق سوليو إذين لديار برنامج كي مرتي إيه ماهيو وحتى توصل قال سعتان دوكسي ميديا هدو أبعد ممانتسا وحن كسر قادنينا ماهي لما قاعد بحذي عرب إيه الكاعد سجودو إيه جنوا ويسكبتان وحنو ملينا يا إم بدن أو إذن كمذا هدياتهم سومالي ده mahmaayadaasi waa mahmaayo caanka ah dhammaan geyiga Soomaaliyeed waxa isticmaalay largaradkeena uqaasheena hableheena xitaa dhalinyarada qaar kamid ah way isticmaalaan laakiin waxaan ugu talagalay runtii dadka jecel mahmaayooyinka inay dhageystaan iyo jiilka cusub oo ayagu aan fursad u helin inay helaan buugaagtii lagu qori jiray mahmaayooyinka iyo murtida waxa la midka ah ama sidoo kale qurba joogta oo mahmaayo Soomaaliyeed ba aan saas aqoon ugu lahayn sidaas darteed barnaamijku waa barnaamijkii aan ugu talagalay inaan la wadaago dhammaan walaalaha iyo daawadayaasha ku xiran channelka Duxi Media ku soo dhawaada arab iyo ilka cid isugu dhow iyaguna way isqabtaan marka lagu leeyahay waa mahmaayo runtii waxa abuuray oo sameeyay ileer garad aqoon uqaal Soomaaliyeed ee ab iyo awoowo inoo ah inaga onu kala dhaxalnay waxaanu doonaynaa inaanu reebno jiilka naga dambeeya jiilka u sii dambeeya ka sii xiga ileen waa dhaqan waa murti waa mahmaayo waxaana loo isticmaalaa hadba meesha ay mudankeedu yaalo ama micnaheedu uu ku fadhiyo arabi ilkaacidi isugu dhow iyaguna way isqabtaan micnaheeda haddaan idiin balbalaariyo waa sidan dadka waxa isugu dhow wiil iyo aabihii ama wiil iyo hooyadii awlaada iyo waalidkood iyaguna way isjiraan darisku way isjiraan aqrabadu way isjiraan way isdagaalaan siyaabo badan ayay dadku iskugu dhacaan fikradaha lagu kala duwan yahay ayaa isku dhac keena erayada ama oraahda la isku isticmaalo ee markaasi aan quruxda badnayn ayaa dagaal iyo isku dhac keeno iyo in la isjiro siyaabo badan ayay dadku isugu dhacaan marka arimaha noocaas oo kala ah ciday doontaba ha noqoto eeliya xigaale tol iyo qaraabo xidid iyo maxaan ku raadayay ciday doontaba ha noqotay markii la isgalo oo la isjiro ayay halkaas murtidii Soomaaliyeed ka soo iftaayo inta jacayl samaha iyo wanaaga iyo inay xumahana suuliyaan walaalahana bogooda burcad isku mariyaan oo ka dhaxnabadeeyaan oo islaax bayna naas ka dhex shaqeeyaan ayaa waxay isticmaalaan mahmaayadan iyada ah wax walba oo dadka ka dhaxeeya markaasi is haysta waxa loo isticmaalaa marba haddoosan dhiig oo san dhex oolin sidatan oo maxaa lagu yiraahdaa markii qolana xagga fadhiso ama la kala fadhiyo ayadoo wajiyadu ay aad isugu xun yihiin oo san xaaladu aysan caadi ahayn waxa la yiraahdaa arab iyo ilka cid isugu dhow iyaguna way isqabtaan oo micnaheedu uu yahay cid walba oo adduunyadan ku nool way isqabsanayaan oo waa la isku dhacayaa oo waxay kamid tahay human nature abuurista ilaahay ayay qayb ka tahay dadku inay kala fikrada ahaadaan isku dhacaan maxaa yeelay isku damiir maahan isku garasho maahan nin wixii la wanaagsan baa nin la xun nin wixii la xunna nin bay la wanaagsan yihiin marka waxaad adigu ceebta u taqaan nin bay caadadiisa tahay sidaas darteed fikradaha kala gadisan iyo isku dhaco siyaabo badan buu u yimaadaa mar haddii lagu yiri marka arabi ilkaacidi isugu dhow iyaguna way isqabtaan micnaheedu waxa weeye anigi adiguna waa isqabanaynaa laakiin mar walbaba hanoo xigto nabad iyo heshiis walaalnimo maxaa yeelay mahmaayada waxay ku tusaysaa wax walbo isku dhow inay isku dhacayaan haddana aysan qurux badnayn inay ku kala tagaan way ku kala socdaan sidaas darteed micnaha ama nuxurka mahmaayadu ay ku salaysan tahay ayaa waxay tahay haddii aad tahay walaal iyo saaxiib haddii aad tahay sokeeye xigaal fikir ama aragti ama qowl aan ku iri ama aad tiriyoon isku qabsanaahay yeesana kala fogeyn marba haddii carabkayga iyo ilkahayga anigu aan wada lahaa ay isqaniinayaan aniga adiguna waan isqaniini karaynaa marka yaan ku kala tagin intaas ayaa nuxurkii iyo mahmaayadii aan ugu talagalay akhyaarta ku xiran channelka ku soo koobaya channelku waa channelkiina waa channelkeena waa channelkii dhammaan ummadda Soomaaliyeed haddii aad hore noola joogtay
waad ku mahadsan tahay la joogistaada. fadlan laagtana sii oo moralka noo dhis, niyadda noo dhis, si barnaamijyada aan ugu sii dhiirigelno. haddii aadan nagu cusbayn oo markii kugu horreysay channelka ay tahay, fadlan subscribe noo dheh, gambaleelkana furo si channelku kugu rukumno, isla markaasna barnaamij walba ee barnaamijyada ka baxa channelka ay kuu soo gaaraan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ha moogaanina inaad isticmaashaan marka loo baahan yahay mahmahyooyinka ku salaysan xigmadda iyo murtida iyo qiimaha badan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waa Dugsi Media iyo Cabdirasaaq Suuley, sidaa iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.